بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحن آدي آدو سلامة يا أصحابتك كحوران شننك فردوس تساني وحن ليهي وولاشن فردوس حسن عبد الله أو إذن الله إن وحبليس وحن إذا عصدا سبسكرايب لايك شير كومنت عارف ما القبا. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت. ما أنت واكد وينهي برنامج يديني هراء wacyigelinta ahaa barnaamijkani waa barnaamij aynu la qaybsanayno naxdinta geerida naxdinta le ee ku timi walaasheen hodan online. waxaan leenahay hodan online waxaa xalaytoole ku gooriyaday magaalada London sayigeedii xaajigeedii caruurta aabahood oo waxaan ku yidhi maasha Allah tabaarakallah barbarkeeda ahaa xaajigeedii ahaa nolosheedii ahaa caruurta aabahood ahaa oo xalay ku geeriyooday wax xanuun oo aynu ku maqalnay ma jirin shalay uun baanay soo galin hodan shalay ma daraatoole way waxay ku jirtay khadka kumanayde wax xanuunana inoomay sheegin waxaynu halkaa aynu ka milicsan karnaa inuu yahay geeri kusoo booda ah ama naxdin ah amaba de mufaaja'a qofnaba inta loo soo jiro ma oga qof kasta maalintiisa ayaa la qabanayaa ama ha soo xanuunsado ama degdeg ha u geeriyoodo naftani meel allaale meel ay joogto ma jirto inta lagu soo jirana ma ogid waxa naxdin wallahi geeri naxdin la weeyaan maalin walba qof aynu jeclayn oo waxaan ku yiri ama asxaabteena kamid aha ama ehelkeena kamid aha ayaa maalin walba la saaraya naxashka oo qabriga loo xaaraya qofnaba ku taamilan qaadan maayo inta yar hore waynu ooyeyna waynu ilmeynayna isla markiibana waxa inoo imanaysa inaynu aynu ilowno oo aynan waxbaba ka baranin inay guriga loo sii wada socdo inuu yahay guriga aakhiro. waxaan leenahay walaasheen hodan iyo ehelka walaalo ilaahay samiriye iimaan saadiqaha ka siiyo awlaada yaryar ee agoomowdayna waxaan leenahay ilaahay ummadooda ha u sakhiro isagana waxaan ilaahay u weydiinaynaa in uu qabrigiisa ilaahay u waasiciyo u ballaariyo ilaahay waynu u baryaynaa. waxaad arkaysaa maanta waxaad arkaysaa iyadoo oo sidaa nolosheenii aaba tahayba oo qosol iyo farxad iyo de waxaan ku yidhi nolosheeniba saa usoo gaabatay oo waxaan ku yidhi ayaabaan maba la baraarugsana. markaa geeridu waa masiibo ummadda ku dhacda ilaahay baa ku sheegay inay tahay masiibo masiibadaana qofkii ay ku dhacdo buu yidhi waa inuu yidhaahdaa qaaluu inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. masiibo aada u adag weeyaan. ilaahay waxaynu weydiisanaynaa inuu kitaabkiisa gacanta midig ka siiyo. waxaan ilaahay weydiisanaynaa inuu qabrigiisa uga dhigo beer ka mida beeraha jannada. ilaahay waxaanu weydiisanaynaa inuu inagana gadaashi aanu ina fidmaynin. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa waar in badan xusa macmacaan-gooyuhuna waxa weeyaan waa geerida. maanta asxaabta waxaan leeyahay qof kasta oo maalin ay hodan ka qoslisay maalin hodan ay wax u sheegtay maalin hodan ay qisooyinkeedii usoo gudbin jiray inuu ugu soo duceeyo oo uu ilaahay waxaan ka baryaynaa uu ugu soo duceeyo inantaa yar ee dhalinyarada ah ee maanta garabkeedii nololeed weyday iyaduna intay ka dambeynaysa la garan maayo inay ku samirto oo ay ku cibro qaadato oo ay wax ka barato qofkii maanta nolosha kula wadaagayay kula seexanayay marka naxash lagu qaaday ee qabrigiisii la geeyay waxa weeyaan waa xanuun waa dareemaysaa laakiin waa wadadaas ina wada sugaysa taasaa la wada marayaa taasaa la wada soconayaa
ku farxiyo ku ka naxa iyo ku ka murugoodiyo ku ka ooyiyo ku ka baroortaba waa waxaan la iskaga jimcinaynin waa mid ina wada sugaysa waa wada aynu ku wada waynu ku wada arooreynaa ilaahay waxaynu weydiisanaynaa inuu qabrigeena inooga dhigo beer ka mida beeraha jannada dembigeena iyo macsiyaha inaga dhacayana inuu ilaahay inaga dembi dhaafo inteeni dhimatay inuu ilaahay u naxariisto inteena maanta geeridii weli la qaadin ee waxaan ku weli la aasin ee weli hawlihii lagu jirana ilaahay waxaan weydiisanaynaa in uu dembi dhaaf uu siiyo u janneeyo oo uu dembigooda u dhaafo oo uu qabriga ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu qabriga u waasiciyo haddii maanta qabrigaaga kuu wanaagsanaado waxaa kuu wanaagsanaatay waa aakhiradaadii cadaab baad ka badbaaday hadduu qabrigu kugu xumaadana waxaa kugu xumaatay qiyaamahaagii oo dhan ayaa kugu xumaaday marka waxaan leeyahay ha la iscafiyo maalmihii u dambeeyey waxaad arkaysay social mediaha oo laga dacaayadeynayay marxuumka intii dacaayadeynaysay ee sawiradiisa soo dhigtay baraha bulshada ee kusoo celcelinaysay waxaan leeyahay war ka saara cafisna ilaahay ka barya oo intii waxu haysayna ilaahay waxaan ka baryaynaa dad cafiya inay noqdaan aday dhibka ugu tahay walaalkaa oo geeriyooday haddaad cafin weydo oo cafisku mar walba geeri iyo geeri la-aanba wuu fiican yahay la iscafiyi waayo waa shay aada u wanaagsan cafisku waxaan maanta barnaamijkan ugu talagalay in walaasheen tacsi aan u diro hodan online oo sayigeedii ku geeriyooday magaalada London waxaan leeyahay ilaahay waxaan weydiisanaynaa in dembigiisii hore kii waalidkiiba u dhaafo naftiisii uu waayay inaanu nabigiisa waayin calayhi salaatu wasalaam ilaahay baanu baryaynaa oo aan ilaahay u weydiinaynaa war hooy wallaahi ka macmacaan dumiyahaasi maalin walba guri masiibadu baa layidhi maanta markay adiga kaa maqantay khayrkaa way la joogtaa markay adiga kaa maqantay walaalkaa bay la joogtaa marka waxa weeyaan waa masiibana waxa ugu kulul waa geeridana waxa weeyaan waa lagu qasban yahay waa dil baynu ku wada xukumanahay waxaan leeyahay inta dhimatay ilaahay ha u naxariisto inta dhimatay ilaahay ha u naxariisto inta noolna ilaahay ha u dambi dhaafo dabadoodna ilaahay inama fidmeeyo waxaan idinkaga tagaa war ha loo soo duceeyo aamiintuna waa xaggiina in ilaahay u naxariisto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu